إسرائيل هرتين أيضو دولة أي تهي وحكلوا رنتي هوس ودقيا dhibaatadii soo gaadhay reer Falastiin iyo reer Gaza iyo kumaanku kii qof ee ku dhintay meesha hoos buu dhigayaa markaan inagu dabaal dagayno aynu faraxsannahay ee calankii Israa'iil aynu wadano isla markaana ay dhib weyn ka taagantay Gaza oo muslimiin la laynayo wuxuu ka soo jeeda qodobka dastuurka ku qoran qodobka 10 dastuurka Somaliland faqradiisa 6 faqradiisa 7 اعتراaf bayna siisay Israa'iil laakiin su'aasha la isweydiinayaa waxay tahay inagu Israa'iil maxaynu siinay maxaan Israa'iil ugu bedelnay اعتراafka madaxan qodobka adiguna maad cadaynin meeshana kama cadayn waanay maqanta waxa muhiim ah shacabka Somaliland inay ogaadaan maxaa اعتراafkan ayagu heleen Israa'iil maxaa loogu bedelayaa xasanow Somaliland in ay maanta heer ka gaadho oo Israa'iil ay wax اعتراaf weydiisato adaa sabab u ah waayo waxa sabab ugu tahay cunaqabatayn badan bad Somaliland ku sameysay magaciis dawladnimada iyo shaambadii dawladnimada aad u adeegsanaya ayaad runtii isku dayday Somaliland iyo shacabka Somaliland inaad dib weyn ugu geysato waa inaad madaxuna si toos ah u cadaysaa ilaa hadda ma cadaan maxaynu dheef ka helaynaa maxaa si dib naga soo gaaraysa dekedeena Berbera waa meesha kaliya inoo furana waxa ugu badan inooga soo dagaan maxaa dib ku iman karta maxaa laga helayaa dhaqaale hawsha noocana ilaa hadda runtii intaan ognahay wax dhaqaale oo اعتراafka ku lamaanan ma jiro bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu bismillaahir rahmaanir rahiim runtii su'aalaha ugu muhiimsan ee maanta aan rabay in ka joogo waa laba su'aalo ugu horreyn runtii horta waxaan bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Carro oo runtii sanadkii u dambeeyay wax qabad la taaban karo dalka ka sameeyay laga soo bilaabo heshiisiintii uu heshiisiyay beelihii dagaaladu dhexmareen qaramayntii runtii inuu hoos u dhigay waxyaalo asaasigaas iyo biyihii iyo laydhkii hoos u dhigay arrimo badan oo nabadgelyo ku saabsan inuu hagaajiyay madaxweynaha runtii waan ugu hambaleynaynaa howlahaas oo dhan sidoo kale waxaan ugu hambaleynaynaa howlaha waaweyn ee diblomaasiyadeed ee maanta uu runtii gacanta ku hayo oo qaar ka midna fuliyay laakiin runtii waxaan rabaa inaan halkan tilmaamo اعتراafkii xalay lagu dhawaaqay Somaliland waxa uu baahan yahay 5 qodob oo waaweyn inuu madaxweynuhu ku baraarugsanaado waxaana rabaa 5 qodob in runtii awoodda la saarin wax laga qabto waayo 5 qodob haddii ay nagu soo baxaan waxaynu geli karnaa halis baynu geli karnaa marka koomada madaxweyne heshiiskii arinta اعتراafkii xalay tolo dhacay Israa'iil ay ku dhawaaqday inay اعترaaftay Somaliland waxa hadallada kamid ahaa inay Somaliland aqbashay inay ku biirto akoorka ama mashruuca Ibraahimiyada qodobkaas kamid ahaa oo ku dhawaaqay Netanyahu isagoo u sheegaya Trumpna inuu sheegay ruuxaantii qodobkaasi madaxweynuhu wuxuu baahay in loo eego sharciyada dastuurka Somaliland maalintii go'aysay 1991 6 qodob ayay ku gooday oo 6 qodob ba ahaa go'aamadii la soo saaray qodobka labaad ee go'aamaha ku jira wuxuu ahaa Somaliland in lagu dabaqayo shariicada islaamka madaxweyne qodobka shanaad dastuurka Somaliland wuxuu dhigayaa in Somaliland aan islaam ahayn aanay ka shaqeyneen madaxweyne qodobka labaad wuxuu dhigayaa isla qodobkaas faqridiisa labaad waxay dhigaysaa inaan sharciga Somaliland ugu sareeyo shariicada islaamka yahay madaxweyne qodobkaas shanaad wuxuu toos u dhigayaa faqridiisa saddexaad xukuumaddu inay u dhisantay xukuumaddu inay fuliso shacaa'irta islaamka shariicada islaamkana dabaqdo mudane madaxweyne qodobka 127 ee dastuurka Somaliland wuxuu dhigayaa shariicada islaamku inay mabaadi'da aasaasiga tahay wax ka soo horjeedaan aan shaqeyneen madaxweyne ballanta aad qaaday ahayd waxaan ku biiraynaa akoorka ama heshiiska ama mashruuca Ibraahimiyada waa mashruuc aad u halis badan waxay soo saareen sanadidii u dambeeyay waxay soo saareen ururka midowga culimada muslimiintu waxay soo saareen inuu mashruuca Ibraahimiyadu yahay mid diinta islaamka ka soo horjeeda oo xaaraan ah oo la qaadan kare madaxweyne mashruucaas wuxuu ka soo horjeedaa dhammaan qodobada dastuurka ee aan sheegay
ee sheegaya sharciyada islaamku inay mabda asaasi Soomaaliland u tahay madaxweynuhuna ay tahay inuu dhaqan geliyo isla markaana baarlamaankuna sidoo sheegaya qodobka 38 uu leeyahay inay baarlamaanku wuxuu u asaasan yahay inuu sameeyo shuruucda islaamka ah ee loo baahan yahay qodobkana waa ka soo horjeeda marka madaxweynuhu kugu baraarujinaya adigoo dastuurka eegaya qodobada asaasiga eegaya inaad qodobka mabda noocaas inaad ku biirto inaad khatartiisa aad ogaato ayaan la baroona ku sheegaya qodobka labaad madaxweyne waxa weeyaan heshiiska ictiraafkii ay shalay tole helay waxa inoo cadaatay ictiraaf bayna siisay Israa'iil laakiin su'aasha la isweydiinaya waxay tahay anagu Israa'iil maxaynu siinay maxaan Israa'iil ugu bedelnay ictiraafka madaxweyne qodobka adiguna maad cadaynin meeshana kama cadayn waanay maqanta waxa muhiim ah shacabka Soomaaliland inay ogaadaan maxaa ictiraafkan iyagu heleen Israa'iil maxaa loogu bedelayaa sababtu waxay tahay madaxweyne dastuurka Soomaaliland marka aad soo qaado qodobka 38 faqradiisa lixaad waxay dhigaysaa heshiis kasta oo caalamiya oo tabiicadu caalami tahay waa in la keenaa baarlamaanka Soomaaliland madaxweyne hawshan aad gashay heshiis baa ka horeeyay labada qolo masaalix bay isweydaarsadeen Soomaaliland Israa'iil waxbay isweydaarsadeen madaxweyne waxa isweydaarsadeen ee Soomaaliland ay weydaarsatay ictiraafka maadaama uu heshiis u noqonayo waa in la hor keenaa baarlamaanka Soomaaliland ummaduna waa inay ogaataa warar badan baa waxa la badan sheegaya warka sheegaya Soomaaliland in la Soomaaliland la keenayo Falastiin la keenayo anu aqoonta intaan ogahay warkaas waxba kama jiraan weeyaan war badan oo warbaahintu ay sheegtay oo leey Falastiin baa la keenaya war intaan ogahay warkaas ilaa hadda ma jiro heshiiskana kuma jiro laakiin waxa jiro qodobo kale oo waaweyn madaxweyne oo heshiiska kamid ah waxa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliland ogaato baarlamaanka Soomaaliland la hor keeno si ay u ansixiyaan ummaduna ogaato haddii kale waxa inagu dhacaya sida hore inoogu dhacay madaarka Berbera inagoon heshiisna ku gelin in wadana gaar ay qaataan marka qodobkaas inuu cadaada madaxweyne waa muhiim madaxweyne qodobka saddexaad ee muhiimka waa maxay waxa madaxweyne heshiiskan aad gashay iyo ictiraafkan aynu helnay wuxuu tilmaamayaa oo keensanaya Israa'iil hortayna iyadu dawlad ay tahay wuxuu kaloo runtii hoos u dhigayaa dhibaatadii soo gaadhay reer Falastiin iyo reer Gaza iyo kumaankii qof ee ku dhintay meesha hoos buu dhigayaa markaan inagu dabaal degayno aynu faraxsannahay ee calankii Israa'iil aynu wadano isla markaana ay dhib weyn ka taagantay Gaza oo muslimiin la laynayo wuxuu ka soo horjeeda qodobka dastuurka ku qoran qodobka 10 dastuurka Soomaaliland faqradiisa 6 faqradiisa 7 oo dhigaya Soomaaliland waxay kamid tahay ummadda Carabta waxay kaloo kamid tahay ummadda muslimiinta wuxuu kaloo qodobka 7 siinaya Soomaaliland inay ka soo horjeedo fal kasto argagixiso inay ka soo horjeedo si kasta loo fasirto saas qodobkaasi dhigaya madaxweyne faralka halka ka dhacay caalamku hay'adaha international waxa wada cadeeyeen fal argagixisa inay ahaayeen inay Soomaaliland marka dawlad noocaasa oo qaab noocaasa ay u gasho oo waliba aan ogna dhibta dhacdayna waxay tilmaamaysaa inaynan dan ka lahayn inaynan qodobada dastuurka aynan eegin ay tilmaamaysaa madaxweyne qodobka afraad ee muhiimka waxa uu yahay dalkeenu waa dal curdina amnigeenu wali si fiican uma sugmin waxaan u baahanay inaan aad uga fiirsano khatarta inagu keeni karto xagga amniga istiraatiijiyada sax ah waa in laga yeeshaa waayo khatar weyn bay nagu soo waajahan haddii aynan ka hortagin oo waliba dariiqooyin fiican aynan qaadin waayo wadano badan baa hawshan dhinac ka ah oo diidan hawlaha noocana khatar weyn oo amni bay nagu keeni kartaa marka hawsha in runtii sidii looga hortagi lahaa sidii khatarta loo yaray lahaa Soomaaliland waa laga falada qabataa madaxweyne qodobka shanaad waxa weeyaan aan ku soo xidhay qodobadaasi waxa weeyaan Soomaaliland heshiiska ama ictiraafka la siiyay muxuu keenay marka go'aan la qaadanayo waa in laba dhinac laga eega cost and benefit analysis maxaa dhib ku jirta maxaa dheef ku jirta waa inaad madaxweyne si toos ah u cadaysaa ilaa hadda ma cadda maxaynu dheef ka helaynaa maxaa si dhib naga soo gaaraysa dekedeena Berbera waa meesha kaliya inoo furana waxa ugu badan inooga soo dagaan maxaa dhib ku iman karta maxaa laga helayaa dhaqaale hawsha noocana ilaa hadda runtii intaan ognahay wax dhaqaale oo ictiraafka ku lamaanan ma jiro heshiiskii uu Muuse Biixi saxiixay waxa ku lamaanaa maxay dhaqaale adliis waxa ku lamaanaa
محوها إثيوبيان إيرلاين شركة أن لا نهاي مركا حشيس كان ما أنت إنه قاضنا ما حشيس قرحة وحبا ما نقول كل معنين بدي إحنا قاضك هو حلو بيسا نبتي السنة إنها عضات مركا أنت كسو جبية ثلاثة عن سينايو يقضى بند المهم كو أركا إن لا إيجو وحن إيجانا كنت أنا ربنا قاضك كتابته قلنا الصومالية وعلى حكومة الصومالية كتلسا حسن شيخ وكيه مدحوينه حصلوا سوماليلاند إن أي مانتا هير كاجادو أو إسرائيل أي وح اعتراف ويديستهم هذا سببه ويوح السبب وقتها أنا قبضتين بدن بد سوماليلاند كسميس مجلس دولة نمدا يشام بدي دولة نمدا أدو أديك سنة أياد خنتي إسكود السوماليلاند شعب كسوماليلاند إن تبون وجو جيستهم وحكوا شيء يا مدحونا محايا حسن هذه أي دعدي مصبح إنه يجلس لك عليه محايا إثيوبيا أو بدأ sababta adaa lahaa Djibouti markii aad kula kulantay caradu aduu ka soo carooday iyo qaabkii fiicnaay aanad heshiiska u galin caradii keentay ayaa keenay in musabbixi uu heshiis gala kale oo badda Real Ethiopia oo siinayna maantana arinta Israa'iil liftigeeda aduu madaxa ku saaran yahay waayo adiga cuna qabateen ku sameeyay Somaliland waxa la badan ay xaq u leedahay shaambad la wadaago oo wali lagu kala bixin شامبد دولتنimada la wadaago waligu lagu kala bixin ayaad rabtaa kaliga inaad ku dhufsato meel kasta oo ku cuna qabatayso shacabka Soomaaliland marka wixii ka imaada iyo dibtii soo gaadha Soomaali adaatunka u ridanaya waxaana kugu daraya Xasan Sheekh hadii aad midowga Soomaaliya aad ka tilinaysid ama aad ka waramaysay cid maanta kaliya Soomaali kala goynaysa waa adiga waayo dadkii wada jooga si kala goynaysa adigu haddana waxa la midowban wadaa arintaas waxa uu arkay inaan arin sax ahayn waxaan ku soo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeed waa walaalo waa dad muslimiina waa dad wada dhashay waxa la isku haystaa waa siyaasad Soomaaliland madaxdu waxay mas'uul ka yihiin maslaxadda Soomaaliya inay ka shaqeynayaan mas'uul ka yihiin adiguna waxa mas'uul ka tahay maslaxadda Soomaaliya sida ummadda Soomaaliyeed loo kala dili lahayn ay walaa u ahaan lahayn in laga shaqeeyo waa muhiim laakiin wixii kala kaxaynaya isna cibaysiinaya kala fogeynaya markasta oo aad runtii lagu dhaqmo umadu way si kala fogaanaysa intaas ku soo koobay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadiiba aqoonsigaas wax la dhaafsan oo noqdo in bees midkiisa Soomaaliland Israa'iil siiso khatarta la baxaysiinta la gaaro hadii ay noqoto Soomaaliland inay dhaafsato in reer Falastiin soo rarno hargeysa la keeno iyadana khatarta la baxaysiinta in su'aasha u dambeysay ka jawaabo haddii Soomaaliland dhaafsato i'tiraafka inay base ay siiso Israa'iil ay ku yeelato Berbera ama haddii ay dhacdo mustaqbalkaba in lagu heshiiyo in Falastiin la soo raro arintaas waxaan u arkaa arin khatar weyn ku keenaysa Soomaaliland arinta base-ka khatar weyn bay ugu keenaysaa bal inagu aan awood lahayn awood dhaqaale mid maamul mid maaliyadeed haddii hawlaha waaweyn ay gallo waxaan ugu iman dhib aynan qaadi karin marka xukuumaddu waa inay ka feejignaataa inay base ay siiso wadan kale oo inaan inagu awoodi kareen hatta ayna ka qaban kareen sida oo kale Falastiin in la soo raro haddii ay dhacdo imika kuma jiro qorshayntan ogahay haddii laakiin ay dhacdo in laga wada hadlo arintaasi arin khatara oo cidna baanay ogolan weeyaan assalaam